السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجكي arrimaha bulshada magaalada Stockholm ee dalka Sweden soo xubisalo. Barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay wareysi gaar ah oo aan ka qaadayno jaaliyadda City ee wadankan Sweden, isla markaana aan wada shaqeyn badan wada sameynay wufuudda maalmo nooga imaato gobolka City oo halkan kusoo wada dhaweyno annagoo ka socono saxaafadda wadanka Sweden. Haddaba waxaa qadka telefoonka iigu jira mas-uuliyiintii jaaliyadda City ee wadankan Sweden, jaaliyadda isla markaana wax u qabata ummadda dhinac walba ay noqoto. Haddaba su-aashaan dhex dhigayo waxay tahay baryahan soo jireenka dhaqanka ciise ayaa wuxuu ka socday kulan muhiim ah oo lagu daafuray isla markaana lagu wada casuumay Soomaali weyn meel walba ay ka joogaan caalamka. Ugaaskana uu hogaaminayay isla markaana ay kasoo wada qayb galeen wufuud ka wada socota adduunka oo dhan. Siday wax u dhaceen, maxaa qabsoomay, maxaa meesha looga hadlay, sidee ayay maaragtay uga soo qayb galeen wufuudda. Marka su-aalaha laba aan kala qaybinayaa. Su-aasha hore waxaan weydiinayaa Naasir Rashiid Cabdulaahi oo mas-uuliyiinta ka mid ah, isaga oo nooga warrami doona wufuudda qaabkii uga soo qayb galeen iyo waxa ay halkaas kala kulmeen, iyo ugaaska asagoo noo soo koobaya soo dhaweynta uu soo dhaweeyey ummadda Soomaali weyn. Su-aasha labaad aan gudbayaa Elias, waxaan ognahay in jaaliyadda wax badan oo u qabatay guddoomiye, maxaa kuu qabsoomay, maxaase shirkaas qayb ahaan ka qaadateen idinkoo masalaya jaaliyadda Sweden? soo dhawaada. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحوفي سلوو waan ku mahad celinayaa marka ugu horeysa sida sharafta leh noogu soo marti qaaday Kalson TV-gaas oo aad iyo aad si fiican ula soconno. waan kaaga mahad celinayaa marka ugu horeysa. marka labaad waxaan xaggan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dunida dacaladeeda. waxaan kaloo xaggan ka salaamayaa dhammaan beesha ciise ee degta saddex geesoodka Djibouti, Soomaaliya iyo Ethiopia. khaasatan ugaaska beesha ciise oon si gaara u salaamayo, oon kashkiya laabta kasoo salaamayo, oon hawada usoo samarinayo salaan gaar ah isaga ugaas Mustafa. guusha oo usoo hooyatay beesha ciise ee ah xuska aqoonsiga xeerka ciise ee la aqoonsaday sanadkii tegey. marka xeerkaasi wuxuu ahaa xeer soo jireen ahaa, waa 500 sano jiray, waana la aqoonsaday, waxaana loo aqoonsaday xeer caalamiya. dee guushaasi waxaan leeyahay waxay usoo hooyatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed, khaasatan beesha ciise. xeerkaasna waa xeer ka wada dhexayn doona insha allah ummadda Soomaaliyeed, inkastoo si gaara beesha ciise u leedahay, haddana waa xeer Soomaaliyeed ayuu noqday oo caalami ah oo adduunka oo dhan laga wada aqoonsan yahay oo maaragtay la aqoonsaday. sidaa daraaddeed waxaa xaflad weyn ay ka dhacday magaalada Dirdhaba oo ah xuduntii amba caasimadda saa loo yidhaahdo beesha ciise, oo saldhig u ahna ugaaska beesha ciise ugaas Mustafa xafidullah, oo maaragtay magaalada Dirdhaba ay ka dhacday dabaaldeg loogu dabaaldegayo amba xus lagu xusayo xeerka ciise aqoonsigeeda. waxaa kasoo qayb galay wafuud aad iyo aad u kala duwan oo ka kala socotay saddex geesoodka Soomaaliya, Ethiopia iyo Djibouti, iyo dhammaan shacabkii degnaa saddexda dal oo iskugu yimid caasimadda Dirdhaba. dee waxaad moodaa Dirdhaba amba khaasatan Ethiopia oo dhanba inuu ahaa dhul inay Soomaali leedahay. maasha allah, ummadda intii lecekeeda timiday dee lama tirin karayn. meel la kala joogsadaa lalahaa, 2 cisho ku dhan ayay socotay xafladdu. desaan baraha bulshada ka daawateen u aragteen stadiumkii dadkii loogu talagalay waa dhaafay inta kasoo qayb gashay. banaanka inta joogtay dee dekadii way xidhmeen, wadooyinka way xidhmaayeen oo maaragtay baabuur maray ma jirin, shacab baa wada haystay guryaha meel walba. waa la isku soo wada banaan baxay. dee Ethiopia waxaa moodaba Ethiopia inay dhul Soomaaliyeed ay tahayba yaa lala moodaaba. marka maasha allah, horta marka ugu horeysa waa hambalyo, waana farxad maaragtay usoo hooyatay, waana guul usoo hooyatay beesha ciise
aabowgaasna waa hadlay oo uu ka hadlay xeerka aqoonsigiisana waa la soo dhoweeyey warqaddii lagu saxeexana waa la soo qaaday oo maaragtay gacanta laga saaray ogaaska beesha ciise ogaas mustafa de waxaan leeyahay xuskaasi waa xus aad iyo aad looga xuso ayay noqon doontaa haddii tole sanad walba si aad hore u aragtana dalka tani sweden waa anagii ku dhignay caasimadda stockholmn waa anagii ku dhignay xuska aqoonsiga xeerka ciise wadamo kaleeto qaarkood wadamada kaleeto yurub iyo america iyo australiaba sidoo kaleba dhammaan beesha ciise degtaa iyo ummadda soomaaliyeed oo dhanba way u soo baxeen way dhigeen way sii socotaa waana la dhigi doonaa bilaha soo socdana way sii socon doontaa sanad kastana waan xusi doonaa de waana sidaan uga soo qayb gasheenna waan uga mahad celinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo dhan maaragtay dunida dacaladeeda joogta siday garab ugu siiyeen beesha ciise oo ah beel soomaaliyeed oo kamid ah soomaalida xeerkanna waa xeere ciise samaysatay oo u gaar ahaa laakiin waa xeer soomaaliyeed khalaas haddii toole xeerkii ciisanimo uu ka gudbay oo wuxuu sii socdaa imika maxaa international socdaa adduunka oo dhan ba ayaa laga wada qoysan yahay xeerkaana dee soomaali oo dhan ayay guusha usoo hooyatay khaasatan beesha ciise ee kala degtaa 3 geesoodka Ethiopia Soomaaliya iyo Djibouti sababta loo yimidana sidaas ahayd oo ahayd maaragtay in la xuso oo loo dabaaldego dhaqankiina lagu soo bandhigo halkaas midnimadii beesha ciisana xagga lagu soo bandhigo midnimadii ummadda Soomaaliyeedna xagga lagu soo bandhigo ayay ahayd ogaaskana maaragtay martiba loo ahaa dad intii marti wixii iman karaysay ee ka kala timiday wadamada Soomaaliya Ethiopia iyo Djibouti-ba dhagaxii la tuuro meel uu ku dhaca lama garan dadku say u kala badnaayeen ay uga soo qayb galeen ayaa aad iyo aad u badnaa marka farxad baa ka muuqatay reereyn baa ka muuqatay dadka waa loo dabaaldegay si fiican waa loo xusay waxaana aad iyo aad si gaaran u salaamaya xaggan ka iloobay walaalkay alfanaan Cawaale Aadan Daheeye oo isagu masraxa aad iyo aad u ruuxay oo xafladda darteed xeerka aqoonsiga beesha ciise uu ka soo jeedo isagu shakhsiyan dib ugu soo noqday fankii masraxiina ruuxay oo dadkuna aad iyo aad u sugayeen marka fanaankaana aad buu qaali ugu yahay dadka reer Djibouti aad buu qaali ugu yahay beesha ciise Soomaali weyn oo dhanna uu matalaa marka fanaankaana aad iyo aad baan leeyahay Cawaale Aadan xagga maan kaasoo salaamayaa adiga marwadaadii iyo dhammaan reer Djibouti si gaar ah haddaba barnaamijkayga arrimaha bulshada ee aa weli qayb ka tihiin daawadayaal waxaa qadka telefoonka igu dar gudoomiyaha jaaliyadda city ee waddankan Sweden gudoomiye Elias oo asagana qayb ka ah barnaamijka waxaan weydiinayaa su-aashiisa oo ku saabsan qaybta ay ka qaateen jaaliyad ahaan shirkii diradhawe ee quruxda badnaa ee caalamka dhan laga daawanayay oo ogaaska hogaaminayay guud ahaan oo Soomaali weyn meel walba adduunka kaga sugan yihiin kaga qayb galeen iyadoo ay ka dhacday munaasabad aan marnaba la iloobi karin Soomaali weyn meel walba adduunka joogaan taageerna loo muujiyey munaasabadihii halkan aan ku qabanayna qayb weyn ka ahayd jaaliyadda Sweden iyo taageerada u muujinay haddaba su-aasheedu waxay ku saabsan tahay qaybtee ka qaadateen jaaliyadda ahaan shirkaas maxaase ku dhiirigelinaysaa maxaase kula dardaarmaysaa ummadda Soomaaliyeed dhammaan iyo jaaliyadda city adduunka meel walba ay ka joogaan soo dhawow walaal Elias waan dhowahay walaal aadna waxaan kaaga mahad celinayaa suxufi Silwo sida aad mar walba ugu heelan tahay soo nooloshaha bulshadii Soomaaliyeed hankiigii xaggii ay gaarsiisanayd mustawaagii ka soo dhacday inaad xalkiigii ku soo celiso runtii aad baan kaaga mahad celinayaa halkaana kaga sii wad baan ku leeyahay haddaan u soo noqdo arrintani munaasibadan waxay noqotay runtii dhul laga guuray abaar noqotay oo ilaahay dib u soo nooleeyey baan oran karnaa runtii shucuurta ummadda lama soo koobi karo runtii anaguna de maadaama aan qayb ka ahayn farxaddii baa ilaa hadda aan la jiifnaa ummaddii diradhabe xataa ku noolayd ee kale qowmiyadaha kale ee islahayd Soomaali dhulka way ka tagtay oo idinka hantiyey hadda quus bay taagan yihiin hadda shirar baa shalay iyo daraad la galay
sidii loo wada noolaan lahaa raggii cabsi baa gashay in muqdisho laga soo duulay oo kale ayay moodeen laakiin dadki waa loo aqli celiyey dadku waa dadkii aad weligii horeba aad ku soo degteen aad la nooleydeen haddii ay sidan tahay iminkaan waxayba leeyihiin badee soomaali waa wada noolaan karnaa ee idinku mas-uul nagaba noqda nabadana ha ka wada shaqayno cabsi baa haddii dadkii gashay inna waxay leeyihiin dirdhaba waan iskagaba guuraynaa haddii tole muqdishona nagaga soo duulay calankii soomaaliya meel walba ka laalaada markaasi dareen kale oo cabsi ayaa gashay laakiin waxa weeyin waa loo yeedhay si walba waa loogu sheegay in ayna cabsoon dadku dad midaata leeyahay ummaduna mataqaanaayay in ay wada noolaadaan ay tahay markaasi waxa weyn arrin fiican baa runtii meesha ka dhacday ay dadkii ay dib in u soo noolaadeen hadda waxaa lagu guuda jiraa guryihii waagi hore 77 dadku ka yaaceenay amxaartu ay deganayd iyo qoomiyadihii kaleba la dejiyey ay dowladdii waagii shuuciyadu ay dejisay hadda waxaa iminka lagu guuda jiraa guryihii intiisii badnayd in la soo celiyo oo dadkii lahaa ee hargeysa iyo muqdisho iyo meel kasta u kala yaacay in guryahooga ay ku soo laabtaan ay qaataan marka dambe amba dib ha u dhisaan amba ha iibsadaan marka hawlo fiican baa runtii socota idinkuna kaalintiina ka qaata aadna waan kaaga mahad celinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi